in ka badan 50 hay-adood martiqaadkana waxaa lahaa Gudida heer qaran oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici 8 wasaaradood iyo narfood wasiiradoodii ay dhammaantood wada fadhiyaan ka qaybgalayaasha oo ilaa 50 kor u dhaafay aad iyo aad baan ka gudi ahaan ugu mahadcelinaynaa waana u mahadnaqaynaa qaran ahaanna waxaan ugu mahadnaqaynaa doorka ay qaataan hay'adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay iyo kuwa hadii Ilaahay badakeeda ku leeyahay local ah iyo kuwa bisha cas iyo dhammaantoodba doorka ay ka qaataan horumarinta iyo gurmadka aynu ugu jirno ummadeena abaarta maanta dhacday ilaa 800 iyo konton ilaa 810 kun oo qof ayay saameynaysaa reportkeeni hore ku soo baxday waxaanay gaari kartaa 3 bilood ee soo socda milyan iyo 200 iyo milyan iyo 200 kun bay gaaraysaa marka runtii waa arrin u baahan haddii aan waqtigaas roob la helin in aynu dhammaanteen u guntano hadday tahay xukuumad iyo haddii ay tahay hay'adaha caalamiga kuwa UN-ta iyo dhammaantood boqolka la isku daro iyo kuwa islaamiga ahba in aynu dhammaanteen u wada guntano marka waa arrin u baahan runtii in la dedejiyo muddada 3 bilood gudahood mid waliba tubiya bixisa iyo tucuna bixisa iyo tudaawo iyo calafba bixisaba intaasi waa waxa lagu qiyaasay oo ay reportka Gudida ku soo saartay lacag ka badan 42 milyan. We are very privileged to have this important briefing meeting in which we are going to take you through the steps that we have gone so far so that we can unify our efforts to minimize first the effect of the drought and then to share with you our detailed budgeted response plan which we think you have a summary of it. So because of that our government have been on alert and watching the change and of the trends in terms of rains, in terms of the other parameters and signals. And now I think it is your turn that you act on the information we have provided and in the information. This meeting is all about highlighting. It's all about highlighting the situation, the drought situation that Somaliland is facing at the moment. We are all aware that climate change is literally happening and affecting all over the world. And in every country, it is affecting differently. In the Horn of Africa, in Somaliland, we have, in the last 30 years, in the last 3 decades, we were experiencing the downgrading of the situation of environment, which is we are experiencing its effect is now. But today we are here to really support Somaliland in this initiative. We have distributed to you the current need of Somaliland government at this time, and the need of the communities of Somaliland communities at this time. And as you highlighted, we are committed to further and mobilize more resources. However, from the side of OCHA, and we have mainly 4 key messages for the excellencies and also the partners. Firstly, the importance of information sharing. Now, donors are asking evidence-based advocacies. So we see ourselves as one of the critical partners of the Somaliland government. We always remain at the forefront in supporting the government efforts, delivering food and nutrition assistance to the people in need. For this year, with the GU assessment, which actually done by the Food and Nutrition Cluster, the estimation was that there was a projection of a drought. So we have already factored a drought in our programming.
And for the 2022, for the first half, we have increased our assistance to reach over 700,000 people. I think a lot has been said, actually, by the government and by the partners who spoke before me. So I guess my job will be just to repeat what's already been said, to encourage. And definitely, as my colleagues already spoke and said, information sharing, information management, proactive planning is definitely the key. runtii aad iyo aad waxaan aad aynu galnay shir aad iyo aad u muhiimsan oo aynu u gurmanayno shacabka reer Somaliland ee abaartu ay saamaysay waxaa kale nooga soo baxay inaynu kala war qaadanay ujeedada shirkuna waxay ahayd inaan ka wada duulno sida inagoo wada jira aynu maartay uga howlgal lahayn dhibaatada abaaruhu ay keeneen inaan maalgelino dhammaanteenba in hay'aduhu maalgeliyaan xukuumaddu maalgeliso private-ka ganacsatada Somaliland u dheedo qaybta ay ka qaataan maalgeliyaan in ay wada shaqeeyaan guddiga iyo hay'adaha caalamiga wada shaqeeyaan si loo ilaaliyo wada maartay wax inay maartay dhulka qaarkiina culays ku dhaco dhulka qaarkiina la gaari waayo loo kala ilaaliyo inaad kulay mardi reportkaan siinay inaad isku noqotaan oo cidii hay'adaha qaarkood cidii wax bedeshay ee u diyaar garoodeen oo ku maadsan yihiin cidii hay'adaha intaanan qorshaha bedelinay inay deegaanka imka naga helaan xogtii inay bedelaan oo qorshaha ku saleeyaan dhibaatada maanta taagan iyo taadii ilaahay kama dhigay si ardu sii fogaato ta soo socoto labadaba inay ku saleeyaan in markasta ka wada socono qaabka inuu hawl galayno wixii noo soo kordha annaguna markasta wada wargaleynaa hay'adaha idinka ugu dhiman soo wargeysan wixii noo soo kordhay waxaad u heshaan hawsha gurmadka xilliga qayb ka qaadanayo aad iyo aad baad ku mahadnaqan dhammaantiin